banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay koonfur ilaa iyo waqooyi. daawasho wacan. dadweynaha reer Muqdisho ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo dibadbaxooda ku muujinaya taageero iyo mahadcelin ay u dirayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maalintii shalay ahayd ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya in ay xoog saaraan sidii ummadda reer Muqdisho u heli lahaayeen xuquuqdooda siyaasiga ah ee aqalka sare. banaanbaxayaasha oo sitay boorar ay ku xusan yihiin ereyo ku aadan baahida ay dadka reer Muqdisho u qabaan xuquuqdooda siyaasiga ah. waxaan aad iyo aad u taageersanahay maqaamka Muqdisho inay hesho. Muqdisho waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed. hooyo aan maqaam lahayn micno ma sameynayso. Muqdisho way ka soo daaday xilligeeda laakiin alxamdulillah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad aan soo dhaweynayna hadalkii qiimaha badneed oo ka soo yeeray maqaamka Muqdisho in loo raadiyo. maanta waxaan u soo bannaan baxnay inaan madaxweynaha kelmadda oo shalay yiri gobolka Banaadir maqaamkiisa aan ku taageersanahay oo leena mar labaad soo noqo waa madaxweynihii ugu horeeyay maqaamka Banaadir oo ka hadlo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah hani ku hadlaayo dhalinyarada aad ugu faraxsanahay hadalka shalay madaxweynaha oo ah in maqaamka caasimadda laga hadlo. caasimadda sida wada ogna dad badan ku nool aad ugu faraxsanahay hadana dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir qaasatan degmada Cabdicasiis waa soo dhaweynayna madaxweyne aad u mahadsan tahay soo noqo mar labaad. sidoo kale waxaa dibadbaxayaasha ka mid ahaa dadka baahiyaha gaarka qaba. Soomaaliya Farmaajo dibadbaxyadan oo ah kuwa waaweyn ayaa maanta waxa ay ka dhaceen degmada Doolo Soomaaliya waxaana ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan degmada Doolo Soomaaliya oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada. banaanbaxan ayaa lagu taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in markaasi doorashada ay xilligeedii ku dhici doonto iyo sidoo kale in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ay hesho matalaadda markaasi golaha aqalka sare. ugu dambeyntii bulshadii banaanbaxa dhigaysay ayaa isugu soo ururay mid ka mid ah barxadaha waaweyn ee degmada Doolo Soomaaliya halkaasi oo hadalla markaasi lagu taageerayo dowladda Soomaaliya laga soo jeediyay. ilaahay baa mahad mudan. maanta farxadan iyo dabaaldegan waxay u dhacaysaa khudbaddii madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Farmaajo uu ka gudbeeyay labada gole ee baarlamaanka kuna gudbeeyay qodobada kooban. ilaahay baa mahad leh oo ay ka mid ahaayeen doorashada xor iyo xalaal u dhacayso maalintii loogu talagalay in aan dhaafaynin. midda labaad maqaamkii magaalada Muqdisho oo Soomaaliya oo dhan xukuntay maqaamkooda uu siiyay waan ku taageeraynaa. lambarka labaad ummadaan isu timid ilaahay dadkiisa isugu timid ee dowladda taageertay u timid waxaa ka dhab ah inay taageerto dowladda nabad iyo nolol ee hadda dhisan ee Farmaajo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha uu khayraad ka yahay inay taageerto niyadeeda uu ku cadaynaysaa saasay banaanka u timid. intaas kadib ummaddu waxay lugo'onsaneyd 30 sano ilaahay baa ka soo kariyey subxaanahu wa tacaala. waxay heshay dowlad daacad ah oo hogaamiso oo dantooda ka run sheegto oo siyaasadeeda bannaanka u saartay iyo heshay. eedaanka maasintiin dowladii eedaankeennii maydasiin sheegay reer doolow mayatiina dad dowlad jeel dad qiirane dad calanka Soomaali jeleetiin eedaanka maasintiin waxay ku qanacsan tahay dowladda joogto oo 4 sano haysay inay qabato 4 sano ama 8 sano oo tan ka dambayso. maanta halkan farxad baan keentay waxa weeye farxad halkan ka keentay anoo hooyo Soomaaliyeed tanay Farmaajo waxaan taageeraa Xasan Cali Khayre
doonaa dowladdeena